السلام عليكم أصحابي سو dhawaada cashirkan waxa waaye waa pixel iyo qaabkii aan pixelka u install garay lahayn ama aan u diri lahayn websitekeena so marka cashirkan waa cashir hadda aad macnaha qof kasta waxay ku xiran tahay websiteka uu isticmaalo iyo macnaha danta uu ka leeyahay so marka aniga waxaan rabaa inaan ku tuso sida ugu simple ugu macnaha fudud oo lagu macnaha loogu daro websitekaaga marka waxaa laga yaabaa inaad isticmaalaysid Shopify ama waxaa laga yaabaa Wix inaad isticmaashid waxaa laga yaabaa inaad GoDaddy isticmaashid waxaa laga yaabaa inaad page builder nooc kale aad isticmaashid waxaa laga yaabaa inaad WordPress isticmaashid marka waxa dhan ma cover garay karno marka waxaan rabaa inaan laba kamid aan cover gareeyo haddii loo baahdo oo kuwa different aad isticmaashid oo aad u baahato in laga caawiyo you can always waa la soo xiriiri kartaa mrbossless@gmail.com igala soo xiriiri kartaa waa kan magaca gmail.com le ku dar meeshaas igala soo xiriir waxaan sameynaynaa marka hadda inaan ku darno pixelka waxaan joognaa Facebook businesskii aan joognaa Facebook manager business managerkan ku jirnaa hadda marka waxaan rabaa in aad tagtid meesha ay ku qoran tahay data sources markaa ku dhufatid waxaa ku dhufanaysaa kadib pixels markaa ku dhufatid laba pixel waaye mid waa Jabron anaa meesha ku sameeyey anaa intaana macnaha waxaan ana sameeyey marka just inaan processka fududeyn rabay laakiin uma leeyahay inay process fududeynayso laakiin waxaan rabaa in haddana dib usoo sameyno marka waxaa leedahay mar walbo adiga kulleyba meeshan haddii aadna joogin waxaa laga yaabaa in magaca businesska u bixisay bis uu meesha kugu qoran yahay oo wax kale in kugu qornayn marka maadaama uu business magaciisa aan u bixin oo ahay Mr Bossless meeshaad marka Mr Bossless pixel ay ugu qoran so marka adiga aad ku dhufanaysaa marka aad ku dhufatid kadib waxaa ku diraysaa magaca aad rabtid inaad u baxsatid pixelkaas aad u bixinaysaa kadib URL-ka aad rabtid oo aad macnaha isleedahay URL-kaas ama website-ka aad rabtid inaad macnaha ku dirtid pixelka ayaad meesha ku qoraysaa so hadda pixelka haddaan rabno inaan ku darno for example haddaan rabno inaan ku darno Jabron amikala waa kana website-ka aan rabno inaan ku darno website-kan waaye macaamiil.jabron.com marka meeshan waxa waaye website aan ugu talagalay inaan koorsada ku dhex dhiso ama koorsada ku sii sameyno oo step by step qofka marka waxaysiinta sameynayana si ugu fududaato website-kan waxa waaye waxaan nahay shirkad dhista guryaha dayactirto naqshadeynta sameyso waxaas oo dhan sameyso marka waxaan rabaa in aan isla wada sameyno kulley marka haddii aan heli karno customer rabaa in guri loo dhiso xayisiinta aan sameyn doono koorsada ku dhex sameyn doono aan ku dhex heli karno way ka fududahay waxaa ka fudud marka aad tahay ganacsade oo gado alaabo ama dukaan leh ama gado cosmetic ama gado dhar ama gado oo macnaha Facebook wax ku xayisiiyo oo macnaha qof u baahan soo wacdo inuu tusaleeyo shaqadiisa ay tahay waxaa ka adag marka aad macnaha xoogo niche down waxa la sameeyay oo qof guri in loo dhisarabo aad xayisiinaad tustirtid marka insha Allah taala waa arki doona waxa kasoo baxo aniga I have no idea in success keeli garno keeli doono iyo ina macnaha ku khasaari doono labadaba macnaha waa arkayna wax kasoo baxo marka website-kan waa website-kan rabno inaan pixel ku darno marka hore ugu daray dhib male waa isku midkii hadda waxaan rabaa inaan ku tuso qaabka loogu daro marka haddana waxaan rabnaa marka inaan website-kan qofka markuu soo galo oo ku qoro magaciisa waxa aan weydiinayno bis waxa waaye waxaan u baahnaa magaca iyo telephone numberkiisa bis wax kale uma baahnayn kadib uu noo soo diraa meesha markuu taabto wuxuu tagaa page-kan markuu tago waa thank you page-ka marka anigu waxaan taraagaraynaa waxa waaye qofkii button-kan taabto aan taraagarayaa oo meeshan ku dhufto oo alaab wax soo diro information soo diro inaan taraagarayno bis page-kaas hadduu tago marka uu thank you page-ka tago kadib wax kale ma sameyn kariyo marka anigu waxaan rabnaa bis inuu macnaha button-kan taabto bis inaan taraagarayno wax kale ma rabno haddii marka adiga aad Shopify aad wax ku gedid ama e-commerce aad tahay oo alaab aad gedid alaabta aad gedisa qofku waa inuu ku dhufto marka ku dhufto oo informationkiisa meesha oo macnaha uu dalbado alaabta kadibna jack oo taabto add to cart kadibna oo check out sameeyo kadibna oo sii sameeyo informationkiisa geliyo bank account bank card details wax dhan geliyo lacagti kadibna oo dhaho check out oo sii taabto oo markaas wax gato purchase ku tago waa about 3 to 5 steps oo aad taraagaraysid waa taasna waa very simple dhib lama marka waxaan rabnaa inaan website-kan aan pixel ku sameyno
kadibna haddana aan websitekan pixel ku sameyno oo agencygayga oo macnaha UK oo macnaha waa local ad agency oo PPC marketing marka kan waayo hadda marka waxaan sameynayno insha Allah tacaala so marka haddii aad gelisay websitekaaga kadibna continue aan leenahay insha Allah tacaala so marka websitekan waa websiteka arabno inaan macnaha pixel ku darno Mr. Boss Pixel haddaa rabto u bixi Fadumas Pixel waxaa rabto baxso adiga pixelkaaga magaciisa websiteka aad tiragelinaysid magaca waxaa u bixinaysa u bixi so continue leh kadib wuxuu ku weydiinayaa marka qaabka u setup galinayso setup the pixel haddii marka aad manual ahaan u sameynaysid ku rabaa inuu ku weydiiyo marka aniga manual aan rabnaa haddaa isleedaha aad partnerska oo kale marka aad code using partner integration oo Facebook partnerka haddaa ku dhufatid oo kale markaas waxa waaye waa Shopify haddaa kusii dhufatid oo kale Shopify tana waxaan oo dhan waa integrated oo macnaha Facebook waa 1 click 2 click kadibna meesha waa ay toos waa very easy marka aniga saas ma sameynayno waxaan sameynaynaa in waxaan rabnaa aan ku dhufano manual ahaan inaan u sameynaa rabnaa insha Allah so marka kusoo laabo pixelka kadib ku dhufo websiteka noo geli kadib waxaan leeyahay set up pixel now manually kadib copy waxaa copy garaynaya marka codeka waa kana codekaas haddaa meeshaas ku dhufto copy uu leeyahay marka kadib waxa waaye meeshan ha ku aato hadda on ha ku aato in on ku aato waaye meeshaas so marka kaas soo qaado waxaa gelinaya marka meeshaas kaas gelinaysid waxa waaye meesha adiga aad ku shaqaysid haddana marka kan waa my page builder oo macnaha customerka wax ugu sameeyo so haddii aan rabo kale inaan ku daro kale kan waxaan ku dhufanaa meeshan kadibna meeshan aan ku daraa so marka meeshan imaaday oo ku dhuftay meeshan aan ugu daray marka waa kaas meesha ka muuqata marka macnaha intaasaan sameeyey so marka hadda maadaama aan ku daray on live aan dhahay oo live tahay macnaha wax point ay sameynaysa male ma fahamtay so marka waxaan rabaa in aan ku tuso marka qaabka aad ugu diri lahayd WordPress marka isticmaalay sidoo kale websiteka WordPress oo yahay sida kan oo kale so meeshaan imaanaya waa inaan plugin aad kusoo darsataa oo WordPresska plugin kusoo darsato new plugin kadibna marka new plugin taabo kabacdina add new ku dhufo kadibna waxaa ku dhufataa mid inaad pluginka soo downloaded waa insert header pluginka magaciisa waa kana insert headers and footers allah so haddii aad ku dhufatid kadib wuxuu ku leeyahay activate kusoo dar waa kusoo daraya oo activate garaynaya marka activate garaysid wuxuu ku imaanaa meeshaan so marka settingka tagaysaa kadibna insert waa kana pluginka haddaan soo downloadnay so markaas ku dhufanaysaa kabacdina pixelka ay haysatay meeshaas ayaa gashan kartaa marka waa kusoo copy garaysay meeshana paste ku dhahay so anoo kale hadda marka meeshan paste ku dhahay hadda meeshan marka fiirisid codeka waxaan geliyey meeshan hadda si fiican u fiirisid waxa ku qoran booqdayaasha siteka meesha ku qoran tahay so hadda marka meeshan tagtid oo kale hadda refresh leedid oo kadib aan fiirino pixelka inay ku jirto in kale sitekan oo kan waa tig booqdayaasha siteka oo kana soo baxday so marka saas ugu diri kartaa siteka oo macnaha WordPress so marka hadda waxaan rabnaa inaan track garayno guryaha dhismaha iyo businesskeena meesha nooga socdo oo dhismaha inaan track garayna rabnaa marka so marka hadda maadaama aniga aan pageka tegay oon meesha ku soo taabtay waxaa ii soo baxaysa meeshan in macnaha ay shaqeynayso calaamadaas greenta meesha ku muuqato oo active inta macnaha ka muuqato so marka waxaan sameynaa waxaan rabaa marka inaan buttonkan aan track gareeyo qof markuu ku dhufto marka waxaan sameynaa marka meeshaan ku qoran tahay event managerka ku dhufo pixelkian ku dhex jirnaa weli hadda waxaan sameynaa marka waa pixelka ku dartay waxaan oo dhan waa iska wada fake pixel soo hadda aan sameynayn laakiin pixelkan waa pixelka noo shaqeynayso haddii aad hoos fiiri sidoo kale meeshaan waxaa kugu qoran active
inta mar oon macnaha meesha page kala tegay waaye macnaha. So hadda marka waxaan sameynaynaa insha allah in waxaan rabaa aan ku darno pixelka qaybta buttonka inaad taabto. So marka hadda wuxuu leeyahay meeshaan ku dhufo event macnaha eventku waa macnaha waa action macnaha eventku macnaha danta aad leedahay waa macnaha. So hadda haddaan ku daro add event or from the pixel ama from a new website. So hadda marka maadaama ay ku jirto from the pixel aan dhahaa marka kadibna waxaa dhahdaa open event websiteka geliyo kuliya marka websitekaas haddii pixelka ku jirto maadaama ay pixelka ku jirto waxaan leeyahay marka websiteka waa kanaha. Okay, meeshaan hoos wax ka taraagareynaa hadda. Okay, next. So marka hadda waxaan leeyahay marka waxaan taraagareynaa waatan ugu easysan oo lagu taraagareeyo haddii aad rabtid leads oo kale iyo hadda kan oo kale anigu asking only number iyo telephone number iyo magac bas leads. So button aan rabaa aan leeyahay marka haddii aan ku dhufto URL oo macnaha URL-ka macnaha thank you oo kale aan sii diri karaa laakiin waxaa igala fiican inaan buttonka aan taraagareeno. So hadda buttonkii marka asiga automatic soo qabta macnaha. Okay, yes, buttonka waa kan sax waaye. So eventka arabtid marka maxay taa waaye ana marka buttonkan lead aan ka dhiganaynaa. Lead macnaha means qof wuxuu noo soo diray telephone numberkooda iyo magacooda. So aniga marka waxaan u count gareynaynaa lead inay tahay macnaha. So marka confirm dheh. Okay, tick ana soo baxday qof hadduu meesha wax soo geliyo waa lead. So finish. Okay, so marka hadda waa sameynay oo macnaha hadda leadki iyo macnaha hadda waxaan ku darnay lead. haddii markaan fiirino pagekan pixelka waxyar marka hadda waxaan test gareynayaa leadkaas inay shaqeynayso inay shaqeynaynin laakiin cashirka ku xigo ayaan ku test gareynaynaa insha Allah tacaala. marka soo dhawaada.